وحينو شيء عالم كان ما أنت ولا واشي مسكح هذا الاسكو ولا بوغضي اسبيطال الله ضد كان مسكح هذا كثير الله ولا فرطي ضد كان لف حروري طبر حروري على الحرور منه ما هي مسكح هذا الاسكو بوغضي وذكر إلهي يراضي بأساسه انت ربنا وإلهي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ضد كمؤمنين تذكر الله قلب وحسنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوب أنيبا ذكر إلهي ويكحس الشاش قرت القرآن كان مقش قرت القرآن كآخر قرت ذكر الله حسته ولذلك النبي قال حاجر عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء أرنها الدين ملوغل يول والجلسه بادر إلى الصلاة صلاة بفع الرجل صلاة بقلي شري صادت بحلو وجعلت قرة عيني في الصلاة الشيء اللي النفط إذا وحي كنا سطوي كدك صلاة إلهي قال ربي بهرتا غني هاي ذكري أذكارته هو اللي يبقى كجرتا اسبيطال الله ضد كان ولا جيران ee maskaxda laga wada hayo muslimiintina waa ku soo jeeray qofkii waa walwalaya waa walbaharaya waa fikiraya hurdadii baa ka tagaysa isagii baa isku foofaya isku maqlaanshihi maskaxdii baa meel gubanaysa marka dambe inuu dadlaayo iyo duur uu cararo iyo dabaqal isku soo tuuro u dhaxaynaya qulubtan gubatay wixii daweyn lahaa iyo dhikriga ilaahay baa laga waayay waxa ugu badan oo arimahaasi ka jiraan dadkan masaakiinta ama ee nolosha la hardabaya maaha inta uu erag badan baa ugu walwaliyo walbaar badan dhakhaatiirta haddaad tagto maskaxda iyo nafsiya nafaaba loo jireeyay intii lacag haysatay halkaan bay safkooda wada fadhiyaan halkaan baa saf loogu jira dadkan cilaaj quraan iyo waa lagu aqrinayaa la yiraahdo waxaan safani in badan oo kamida maskaxaan baa loo jireeyahay maxaa lagu sameeyaa kuwa ku caafimaada quraan iyo dhikr baa lagu akhriyaa irbanda lagu ma durin wax kale lagu ma sameeyo quraan iyo dhikr baa lagu akhriyaa way xasilaan hada gaaladii baa samaysanaysa meel quraan ay dadka ku akhriyaan maskaxaan u xanuunsan oo quraanka dhageysigiisa yaa lagu daweeyaa waliba ka tajwiidka si faa'iido badan bay hadda qorayaan iyo marar horeba qorayeen ka tajwiid si fiican loo akhriyo bayba dadku wadagayaano wixii buuqayay didaye bacbacaleynayay tumanayay way kala fariisanayaan baa innagii inaan qalbiga iyo maskaxda ka wada jirno oo quraanka iyo dhikriga haysan soo nasiib darama ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub qalbiga mu'miniintu dhikriga ilaahay ku xasila haddii aad aragto qalbigaaga oo telefishinka ku xasilaya oo nogay waqtiga maray oo filimada musalsalaadka iyo kooxaha ciyaaraha iyo xulalka ciyaaraha iyo chattingka Facebook iyo meesha social media iyo banaanka sheekada iyo fadhi ku dirirka adeeris ogeyn oo xasiloon oo ina waqti ku dhaafay ogeyn aan arag marka dhikri iyo tasbiix bilowdana hareeraday bilowdo iimaankaaga wax si ka yahay isugu noqon hadii iimaanku saxan yahay tana qalbigu ku xasili lahaay waqtiga ku maray aad ogaateen dhikriga ilaahay qalbiga ku xasili waayay iimaan daciif uu tilmaamaya iimaan taad beelay uu tilmaamaya iimaan tabar dhigay uu tilmaamaya ina waxa kalena aadan ogeyn saacad buu taagan yahay halka banaanka masaajidka hortiisa oo san ogeyn madaalin lugana ma xanuunin dhabarna ma xanuunin salaada waxa la aqrinayaa suuratu tabaaraka alladhi bi yadihi almulk isagoo dhabarka xanuun ilaahu baxaya وصلاة محل أقرية شن 7 دقيقة وبنان 10 دقيقة يسرقعد واحد هل كي ساعة دوركم حنونين كان محوكو حنوني وحا أغربتان وحيسي سنتهي كما حنكم داش لكن كم من حيسين اللي وقلبي جيبان حسيري وريمان كان ديبون نقرنا الدنيا دوائي لك الشيء قلبي الملوبات بدن نوات شراي وذنوبتي معاصري هي الشهوات كي لقو حدناوي كل جوات جعلها هنا ذيك قبلنا إن عند بداف طاهر إن عند سنة قال ما هو ولا جعلها وهذه اللي ويديان هبي قفق عن تاجي لقوم تشوف هذا أنا لكن هلا صبي مركل اللي يرى هذا تصبيح صدق هذا دربها يراها زي قف الله شاكيت زارين قف شكاسي يواي ميس كات رفع بيدك يا أخي هذا ترى وحرين مكو كور صدق شوف كاسي محمد ويديه بكله روحات ويديه بروك ويديه وحنا يعني وحما لا يعني ويدينيا كليه waa garanaysa marka dambe waxaan wax weyn oo isaga laftiisu uu raba inaan ahayn nafiya shahwiya shaydaan baa dabada ka riixay war shaydaanka in iska naarno wadikri ilaahay aynu badino oo meelaha suuqa
iyo shaqooyinka iyo jidadka aynu marayno tasbiixda iyo taxmiidda iyo salliga nabiga istighfaarta intaba aynu badin ikhwatal islaam wal iimaan taasay qulubtu ku xasishaa taasaynu janno ku gelaynaa taasaa dembiga la inoogu dhaafo taasaa kurbada ilaahay nagaga qaadi hamdigii iyo maskax wareerkan iyo qalbi gubadkan taasaa lagaga bixi wailaa aadamuhu duruufta nolosha qadar baa loogu talagalay inaad walwashood walbaharto qadar iska tabiiciyaa jiro iska nolosha rabbiba ugu talagalay subxaanahu wa tacaala waxaan ka hadlaynaa waa waxaan ka badane dadku maskaxda intay buuqdo ay waashaan inba inta ilaahay uga dhowdahay yay ka cibaadiya taaca badan tahay bay qalbi wareer iyo isku buuqani uu kaga yaryahay wixii markaa cirubkani iyo jiman aanay dusha ka fuulin ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryayaa xaqa iyo khayrka inugu soo dabaalo nafya shaydaan allah inooga kaalmeeyo kuwii dikrigiisa iyo xusitaankiisa daa'ima ee badiyaan allah inaga dhigo kuwii dembigooda la dhaafana allah inaga dhigo naftiya shaydaanka iyo shahawaadka balada kale nagu wadana allah inaga badbaadiyo